ilaa iyo 59 ka tirsan khawaarijta ayaa lagu dilay howlgallo ay horkacayeen ciidamada qalabka sida oo kaashanaya dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamka kuwaas oo laga fuliyay deegaano ku yaala bariga gobolka Galguduud iyo Shabeellaha Dhexe. howlgalka koobaad oo lagu dilay 32 dhagar qabo oo isugu jiray horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsanaa khawaarijta ayaa ka dhacay aaga Gariley oo u dhow deegaanka Cows Weyne ee gobolka Galguduud. waxaa sidoo kale howlgalkaasi ku shahiiday 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. howlgalka labaad oo lagu laayay 27 dhagar qabe ayaa waxa uu ka dhacay goob ay cadowgu isku urursanayeen oo ku taalay tuulada Yaaqla oo u dhow deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaana sidoo kale halkaasi lagu burburiyay fariisinkii cadowgu ay isku urursanayeen. howlgallada bartilmaameedka ee lagu beegsanayo horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka ka tirsan khawaarijta ayaa la korriyay iyadoo maalmihii ugu dambeeyay si weyn cadowga loogu naafeeyay.